deni iyo kooxdiisa rajiimka ah ee Aranjan oo ku caanbaxay inay ummadda noqdaan maafiyo ka ganacsada dhiigga dadka masaakiinta ah. Xasan Shire Abgaal waxaad $50,000 siisatay passport Swedish, waxaad damacday maalinta aad dalka iyo dadka baabiisay inaad istiraahday dalka Sweden aad u baxsatid adigoo ay gundahaaga iyo gumadahaaga ay buuxaan oo ay qulqulayaan dhiiggii dadkii masaakiinta ahaa, cuqaasha dadkii waxba aan galabsanay masaakiinta ahaa ee birmageydada ahaa, carruurta lahaa, haweenka lahaa, odayaasha lahaa lagu agoomoobay siideynaya dhammaan dadkii ku dhintay gacanta Xasan Shire Abgaal iyo talaxumadiisa iyo tashaxumadiisaba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ba'd. Ugu horeyn halkan waxaan tacsi uga dirayaa dhammaan intii ku geeriyootay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Afurur. Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo, intii ku dhaawacantayna Ilaahay ha u boogadhayo. halka waxa Afurur ka dhacay ma ahayn markii koowaad iyo markii labaad, waa marar badan oo soo noqday oo mar walba la beegsanayay ciidamo masaakiin oo halka jooga. waxaanad moodaa ciddii hawshan u xil saarnayd inaanay tacsina ka dirin kana gaabsadeen danna ka lahayn maalin kasta dadka halkaa ku dhimanaya. ugu horeyn halkan waxaan rabaa inaan baaq uga diro dhammaan dadka ka soo jeeda gobolada Salaag iyo Highland ku saabsan dagaalkan maalin walba soo noqonaya ee gaadiidka iyo dadka ay ku dhimanayaan aan cidina dan ka lahayn, iyadoo loo adeegsanayo magaca Puntland dhaqaalana lagu qaadanayo, dhibkana ay ku dhacayso dad gaara. waxaan u sheegayaa in alxamdulilaahi rabbil caalamiin dacwadoodii ama dacwadii arrimaha ku saabsanayd falalkaas soo noqnoqonaya argagixisada inaanu gaarsiinay cid allaale ciddii ay khuseysay ee dowladda federaalka ah iyo dhammaan beesha caalamka ciddii gacan ka geysan jirtay. insha Allah dhawaana ay noqon doonto wax inaga inoo gaara inaanu kaga tashanno, ama aynu nabad iyo xal iskaga saarno, ama aynu xoog isticmaalno, ama aynu xeelad isticmaalno inay noqon doonto mid gacanteenu talada ay ku soo noqoto, inaguna aynu ka tashanno. meel fiicanna way noo maraysaa. muddana borseeska la waday, haddana waxaad moodaa inay soo dhawaatay oo meel gabagaba ah ay marayso. ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. dadka dal iyo dibad joogana fariinta waa gaarsiinayaa, meel fiicanna way maraysaa. arrinta labaad ee aan rabo inaan ka hadlaa waxa weeye Xasan Shire Abgaal oo qada lagu casuumay kaga hadlayay gabadh Allah u naxariistay ku dhimatay Aamina xildhibaanadii qaran ee ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibadba ay ka naxeen shilkii ka dhacay ama qaraxii ka dhacay magaalada Beledweyne, oo uu yiri waxay ahayd arrimo siyaasadeed oo uu si gaar ah ugu durayay cid gaara. Xasan Shire Abgaal oo ah wasiirka maaliyadda Puntland waxaa la rabaa inuu ogaado in lagula xisaabtami doono dhammaan falalkii shirqool ee uu ka geystay gobolka Bari iyo Nugaalba. gudoomiyihii gobolka Nugaal Ilaahay u naxariistay Gujir qarax ayaa lagu dilay barxadda Garowe, ilaa ay haddana cid loo soo qabtay ama loo xiray ama loo dilay ama maxkamad loo soo joojiyay ma jirto. sidoo aabihii maalintii dhawataba warbaahinta uga calaacalayay oo uu lahaa wiilkeygii xaaladiisa meel ku dambeysay danayo ma garanayo. arrintaas waxay dul hooganaysaa Xasan Shire Abgaal. wasiir Xasan Shire Abgaal wuxuu tagay magaalada Boosaaso, wuxuu ku khasbay Deni inuu digreeto madaxweyne kaga qaado xilka Maxamuud Diyaano. markii Maxamuud Diyaano uu diidayna wuxuu ku qaaday dagaalkana waxa ka horeeyay niman saraakiil ah oo uu ku qarxiyay magaalada Boosaaso oo gudoodana uu kamid ahaa iyo saraakiil kale
oo baadhistooda hadda socoto lugtana ay la gashay xasan shire abgaal kadibna wuxuu qaaday weerar uu ku qaaday hay'adii BSF dagaal baa halkaa ka dhacay dagaalkaana waxaa ku dhintay dad gaaraya 82 qof waxaa ku dhaawacmay 100 qof waxaa ku burburay hanti dad waxaa barakacay 100 qof oo kale xasan shire abgaal dagaalkii uu Boosaaso ka riday ee ahayd ku saabsanay digreetadii laga qaadayay madaxtinimada ama xilka Maxamuud Diyaano waxa dib u soo cusboonaysiiyay oo dib u soo celiyay Saciid Cabdilaahi Deni isagoo u arkayay digreetadaas inay digreeto khaladan ahayd isagoo u arkayay in ay mas'uuliyadii qaadanayaan wax alaaliyo wixii ka dhacay magaalada Boosaaso qaateena go'aamadii ay gaadheen ismadii gobolada bari xasan shire abgaal waxa kale oo lug lahaa oo gacan ka geystay odayaashii cuqaashii beesha warsangeli ee lagu qarxiyay magaalada Boosaaso oo aan cidna sheegan cidna loo hayn cidna loo xirin Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa marodigu takarta saaran ma arkeet kale oo arkaa xasan shire abgaal waxaan leeyahay inta soo dhibaato aad geysatay oo aad ku geysatay magac dawladnimo aad ku geystay magac xukuumadda Deni ilaa ay hadda wax war ah ama wax kiis ah oo aad ilaa hadda ka garbaxdeen lama hayo waxa si ka calaacaysay arin taagan oo aad arrimo siyaasadeed ku tilmaamaysay magaalada Beledweyne oo dad fara badan oo masaakiin ah oo runtii u baahnaa in loo damqado laga naxo loo tacsiyadeeyo loo duceeyo inaad u bedeshid arrimo siyaasadeed adigoo ay gundahaaga iyo gumadahaaga ay buuxaan oo ay qulqulayaan dhiigii dadkii masaakiinta ahaa cuqaasha dadkii waxba aan galabsanay masaakiinta ahaa ee birmageydada ahaa ee caruurta lahaa haweenka lahaa odayaasha lahaa lagu agoomoobay adigoon meel la u saarin kiiskiina meel dhigin in aad tiraahdo kiis kale meel kale u yaalaa aad ka hadashaa waxay tusaysaa ama ay cadaynaysaa dadka ku nool Puntland inay yihiin dad cuqaashooda iyo maskaxdooda iyo dareenkooda iyo dadnimadooda lagu ciyaari karo iyagoo la laayay haddana loo jili karo filin kale oo la doonayo in orle lagaga dhigto sanaan la rabo in lagu koro dawladda federaalka ah iyadoo laga dhiganayo campaign taasi waxay cadaynaysaa cashuurtii dadka masaakiinta laga gurayay ee aanu ahayn hanti aabihii uga dhintay ama xoog u shaqaystay inuu u isticmaalay inuu dad ku laayo dad ku handado dad ku qarxiyo dad ku qaxiyo inuu hadda bilaabo inuu lacagtii u bedelo in lagu campaign gareeyo Deni sidii uu kor lahaa kursiga ugu sareeya federaalka ummadda Soomaaliyeed ama xildhibaanada ka soo baxay dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliyeed oo ka dheregsan dhibka iyo dhibaatadii aad ka soo geysateen Puntland way ogyihiin inaanay Saciid Deni ku aamini kareynin qarankan hadda hana qaaday himilada fiican leh higsiga leh rajada leh u socda meel la rabo Soomaalinimadii hore ama quruxdii iyo qarannimadii hore ay Soomaaliya qiimeey lahayd in lagu soo celiyo inaan loo dhiibi kareynin Deni iyo kooxdiisa rejiimka ah ee Aranjan oo ku caanbaxay inay ummadda noqdaan maafiyo ka ganacsada dhiigga dadka masaakiinta kana dhigta hadba siyaasadda ay doonayaan inay ku kororsadaan waxaan hadalkayga ku soo gaabinayaa xasan shire abgaal waxaad $50,000 siisatay passport Swedish waxaad damacday maalinta aad dalka iyo dadka baabiisiinay siraahday dalka Sweden aad u baxsatid waxa dacwad hadda ay ka socotaa oo aan gaarsiinay dawladda Sweden oo ku saabsan dhammaan dhibaatooyinkii aad ka geysatay Puntland imikana aad rabtid inaad u soo rartid magaalada Muqdisho xasan shire waxaan leeyahay cashuurtii ummadda aad ku baabiisay intaad isku waardiyeynayso muddo yar baa kaaga hadhay bilo wixii ka dambeeya shacab baad noqon doontaa waxaanad geysatay godobo fara badan geed aad ku harsataana way ku yartahay waxaan kaloo la hadlayaa halkan dardaaran uga jeedinayaa dhammaan intii wax ku waxyeelowday magaalada Boosaaso dadkii cuqaasha lagu qarxiyay dadka af urur maanta haddana dagaalku ku qabsaday oo aanu ka tacsiyadeynin in ay ogaadaan inay dacwada ka furantahay xasan shire abgaal heer federaal iyo la gaarsiiyay dawladdu baasaboorkeeda sitay Sweden ba
cid kasta oo dhibaato ka tirsanaysana waxaan rabnaa insha Allah taala inay nagala qayb qaataan hawshaasna ay nagu taageeraan waxaan kaloo mar labaad iyo mar saddexaad u tacsiyadeynaya dhammaan dadkii ku dhintay gacanta Xasan Shire Abgaal iyo talaxumadiisa iyo tashaxumadiisaba aad iyo aad baan dadkan uga tacsiyadeynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.